عطوش بابا هالكاس قاريبو حاسد waaye intuu madaxa iga qabtay oo i ceejiyo feer igu daldalay madaxa iyo feeraha iga feer wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga soomaalida meel kastoo joogtaan iyo si walba aad noo dhageysanaysaan noo taawanaysaan waxaan idinku salaamay salaanta ugu sharafta badan adduunka cizi iyo sharaf mudan assalaamu calaykum intaas kadib haddii ay ku tahay subax waxaan ku leeyahay subaxnimo wanaagsan haddii ay galab ku tahay galabnimo wanaagsan haddii ay casar ku tahay xilli walba ay ku tahay in your respective time in your respective area waxaan ku leeyahay waqtigaas oo wanaagsan magacaygu waa Ismaaciil Xasan Arax haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aadna soo booqanayso waxaan si codsi iyo sharaf kaaga codsanaynaa anagoo waliba saan ku dhahayna ku ixtiraamayno inaad subscribe ka saarto channelka like-tana aad saarto like-ta asxaabay meel dheer bay na gaarsiinaysaa adigana wax badan kaama dhimayso barnaamijka markaad dhegaysatidna fikirkaada quruxda badan iyo ku aadan topiga aan hadda ka hadlayno nala wadaag kaasna waxaan ugu yeernaa commenti waa markaa barnaamijka dhamaysatid hadda marka ugu horeyso ha iga degina asxaabta waa hagaag sidaa ku aragteen title-ka oo ciwaanka aad ku aragteen iyo thumbnail-ka arrintan laba u kala qaadaynaa mid waa waano iyo ilaahay kuma darnaaday xoogaa kulaynaan xoogaa karbaash sameeyo midna waxaa weeye ilaahay kuma darnaadee waana dhexalgala marka karbaashkan ugu laayaan u hormaraynaa horta Catoosh Yare waa nin Soomaaliyeed xaaskiisana waa gabar Soomaaliyeed dadku inay isfuraan oo ilaahay kuma darnaadee la kala tago ilaahay jalla wacala baa baneeyey oo aayad quraana baa ku soo degtay waa la isfuri karaa haddii dadku isfahmi waayaan adduunkan weynanka badan waa lagu kala tegayaa macnaha dadku iskuma tolno marka qof baa hebelaya furtay that is not a news that's what I can tell you guys laakiin waxaan news ah qof baa qof dilay sida haddaan idinkula wadaagayo intaan barnaamijka aan gudaha idiisa u gelin aan bal dhageysana clipkan xaaskii hore Catoosh Yare ay ka hadlayso وإدري ها feerta xanuun feero iga feer xoog oo ii sheegtay إنا لله وإنا إليه راجعون حاسد عطوش waaye بابا هير عطوش بابا هالكاس قاريبو حاسد waaye horta marka حاسد gabadha sideedaba horta markaan fiirino annaga qoyska markii la dhaho qoys Soomaaliyeed oo dhisan ama qoys kale oo Afrikaan ah dadku carab iyo ilka isugu dhaway way isku dhacaan waa la isku dhici karaa dhicitaanku wax cusub ma ahan dadku isku dhici karaan laakiin xogaa waxaa fool xun oo aan rabaa gadaal inaan ka dhigto in qof aan ah qofka markuu aan yahay aniga ma ku dhiirigeliyay inuu barnaamijkiisa iyo maxaa la jiray personal life-kiisa inuu keeno social media sababtoo aan waa sensitive waa qofka markuu aan yahay waa sensitive waa meel kasto uu u bukaa waa u nugul yahay haddii waa nasiib waxaa leedahay haddii masqusha adoo ku jira aana camera lagaa soo qaaday marka qofka aanka ah ee bulshadu ay taqaano dadka la mid ma ahan marka mar walba waxaa u qurxan in uu arrimihiisa private-ka ah uu maxaa la dhihi jiray ilaahay kuma darnaadee keep garayo marka gabadha waxay aad uga cabanaysaa inuu dilay ninkaas inuu dhibaato u geystay gabadhan su'aal bay weydiisay waxay tiri ilaahay kuma darnaadee ninka maxay qaar waxay leeyihiin maxaa isaga celin weyday marka waa idin fasaxayaa laakiin intaan barnaamijkaas idin fasaxin yaa rabaa idin sheego qayb yar oo karbaasha waxaan la hadlayaa videogan ula hadlayaa dadka caanka social media ka ah waxaan ka hadlaynaa waa social media waxaad ogtihiin in arrimo fara badan maalmihii ugu dambeeyey waxaan maqlaynay Sharma Boy xaaskiisii kala tageen intuu soo fariistay buu yiri gabadhi waa kala tagnay
waad ogeyd fartuun balbalaarka iyada la tirkeeda odageeda waa kala tageen inkastoo isku laabteen waxaan haddana maqlaynay ilaahay kuuma darnaaday there are so many cases in the world of social media oo maxaa la dhihi jiray furitaan marka qofka markuu caanka yahay weliba social media ku jiro weliba youtuber yahay weliba yahay qof public figure ah waxaa u fiican intii way adagtahay si lagu ilaaliyo in macnaha waxyaabaha qaar laakiin intaad awoodi karaysid in personal issueskaada aqarsatid haddii guur ahaan lahayd haddii ilaahay kuma darnaaday aan lahayd waxyaabaha financialkaada anything oo sensitive in aqarsatid baa kuu qurxan aniga saasaan ku dhiirigelin lahaa asxaabta social media ku jirta hadda waxaan arkayay gabadha hadda in la wadaagayo gabadha way hadashay waxay tiri ninkaas wuxuu iigale waa idilay waxba magaarsanay marka haddii barnaamijkan laga qarin lahaa in the beginning markay caalamka istusayeen waa isguursanayaan nagula mashquulin laga qarin lahay arrintan cid ogaan lahayd male nobody would have known laakiin way now it is public it is known by everybody so it is the ayaga waay dadka koosgareeyay barnaamijkaas marka hadban insalaama haddii aad weli like saarin videoga like noo saar like wax weyn maaha brotherkayga ama sister you know that like can take us to the next level and there's nothing is going to cost you by doing that marka khayr badan baa idin hijinaya meel walba oo joogtaan Soomaalidu aan idin kaga dhaxbaxo bal clipkan way fikirkaada iyo adiga aragtidaada ku aadan arrintan gabadha dilitaanka lagu sameeyay dabcan adigana waa nala wadaagi kartaa laakiin waxaan dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaalida ah dadka reeraha leh gabadhu geesi baa dhalay gurigeeda ka soo wadatay haddii aad isfahmi weydeen geesigii dhalay dib ugu celiyay gabadha waa la dhalay waa la korsaday wax waqti badan baa la geliyay qof ayadoo caadi waa lagu dhisay waa lagu keenay marka mar walba waxaa qiimo badan haddii aad gabadha isfahmi weydaan waqti xaaskaada ah adoona jirkeeda taaban jirkeeda dad baa waqti iyo wax wada geliyay gabadha iska celi take her back to her house so why do you want to beat somebody that is not yours Adi my father ka no did you raise her no then why do you want to beat her marka barnaamijkaas inta sarbina idin la wadaago asxaabta please waxaan codsanaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan inaan targetan leen inaan gaarno targetkeenana waxa ugu weyn ee sameyn karo waa laba wax waa like iyo subscribe marka qaar aniga I prefer like than subscribe okay ad khayr badan baan rajeenayaa intaan barnaamijkan waxaan ku kulmayno waa arax oo idin kaga tagayo maalinka habeenka idin wacnaabo laakiin aan dhameysano muuqaalkan thank you guys إنا لله وإنا إليه راجعون عطاش ما بهر كاس قاريبو حاسد واي لكن إنه كنت لم حاكيني كرا والس مرمي كرا والس وقايلين كرا لكن دل محامش كان كرا حاسدنimo aabahey oo lahayd lahay beeno iga sheegay telefoon kula laani dumara waaxna kuwa dharbaaxay beena iga sheegina intoo madaxa iga qabtay oo i ceejiyo feer igu daldalay madaxa ii feera iga feer beedhaw markaa ilmiya duu ka soo ridmiya hawo iga soo ridmiya سبحان الله إلهي هقول بدامه الله أكبر إلهي هقول بدامه تيك توك تناسي ما كان نقصده ونقصدها أستغى إذا نقصد تيك توك أرنا ليك وين وانك أنا ولا حنون برانك المسلمين وسيني كلون تذكر إلا دمي على هذا إلى سوقري ها إلا إيه بالله حتى تاوي حنون وسافي